بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 623 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 11kii bishii afraad rabiicu thaani sanadka 1443 isla markaana waafaqsan 16kii bishii 11aad sanadka 2021. waxaanu ku jiray adkaartii iyo ahmiyadda ay lahayd iyo miithaalihii adkaarta shaamilka ah oo maaragtay aan ku qaydnayn waqti aan ku qaydnayn tii awqaadaheed waan soo maray. waxaanu soo qaadanay ilaa 2 xadiid baanu soo qaadanay oo ku saabsan adkaarta mutlaqa oona waqti iyo makaan iyo midna aan lahayn oo qofka had iyo jeer inuu akhrista. maanta iyadii baan weli kusii soconnaa ilaa 5 baanu gaadhsiinaynaa baan nidhi. xadiidkeennan maanta aanu qaadanayna waa xadiid muttafaqu caleyh muslim iyo bukhaari iyo keyrkoodba way soo saareen lafdigan, laakiin hadda aanu akrinayno min sunan tirmidi ayaa iska leh. sunan tirmidi ayaanu kasoo qaadanay. bukhaari asna naftirkiisa waa warinay, muslim wuu warinaya, lakin wax yar baa lafdigooda uu kaga yar duwan yahay. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam: man qaala ninkii yidhaahdaa subxaana allahi wa bixamdihi, intaa ninkii dhah, waa sida shalay aan soo marro o kale, dikrigii shalay oo kale wey. subxaana allahi wa bixamdihi lafdigaas ama dikrigaa ninkii yidhaahda fii yowmin maalin gudaheed 100 maratin 100 jeer ninkii maalinkii yidhaahda lafdigaas, gufirad waa la dhaafi lahu asaga dunuubuhu, dunuubtiisa baa loo dhaafahayaa. wain kaanad haba noqotay dunuubtaas mithla zabadi lbaxri, badda qaaqadeeda iyo abuurka badda iyo wasakda badda dul hahaabaysa oo kale haba la ekaadaba. waxa wasakda ee badda dusheeda maraya iyo webigu markuu biyo keeno ama togu biyo keeno, qaaqada iyo qashinka iyo xumbada iyo waxa xoorta iyo waxa dul socda biyaha oo hadhowna iska baaba'ahaya, intaaba hala ekaado hadduu doono. yacni cadadka iyo badnida wey. wain kaana mithla zabadi lbaxri. lafdiga bukhaari wuxuu ahaa: man qaala subxaana allahi wa bixamdihi fii yowmin 100 maratin xutat, waa la hoobinhayaa khataayahu gafafyaalkiisa, wain kaanat mithla zabadi lbaxri. yani gufirad ma ayna xutat bu ahaa, isku macno bayna tegaya, dembiyaashiisa baa la hoobinhayaa. lafdiga tirmidina maarata gufirad lahu dunuubu waa la dhaaf wain kaanat mithla zabadi lbaxri. riwaayad kaleo waxaa jira imaamu nasaa-i uu la khaas noqday oo laakiin maalin aana sheegaynin oon ku qaydaynin, 100 jeerra aana ku qaydaynin, oo muxuuha lafdigaas culimmaduna ay soo dhoweeyeen. wain kaanat midan aan akrinayno ayaa ka xoog badan. lafdiga nasaa-i wuxuu ahaa ninka yidhaahda subxaana allahi wa bixamdihi xata allaahu canhu dunuubahu wain kaanat akhara min zabadi lbaxri. subxaana allahi wa bixamdihi ninkii yidhaahda maalin iyo habeen iyo waqti midna aan kala lahayn iyo cadad toona aan lahayn, intaa lafdigaa ninka akriya, xata allaahu canhu, ilaahay baa ka hoobinaya dunuubahu dunuubtiisa, canhu xaggiisa dunuubahu dunuubtiisa, wain kaanat haba ahaatee dunuubtaas akhara mid ka badan maarata min zabadi lbaxri, badda qashinkeedii iyo waxa dul socda haba ka badnaado. kii hore wuxuu aha mithla zabadi lbaxri oo kale, kan laakiin haba ka badnaado hadduu doono. laakiin lafdigaa hore ka xoog badan. ikhwatii filaahi, xadiidkan wuxuu noo sheegayaa, nabigu wuxuu yihi maalinkii 100 jeer ninka akhriya subxaana allahi wa bixamdihi, ninka yidhaahda dunuubtiisii oo dhan baa la dhaafi, haba la ekaato badda waxaa dul socda ee qashinka ah. su-aal ba halkaa kaaga imanaysa, dunuubta la dhaafahayo waa kuwee? ma dunuubtiisii oo dhan baa sakiiro iyo kabiira waa loo dhaafi, mase waa sakiirada wey? culimmadu waxay dhaheen waxa loo dhaafi waa sakiirada wey, wa ilaa kabiiradu waxay u baahan tahay toobadkeen bay u baahan tahay. qolo kalena waxay dhaheen waxaa suurtagala dunuubta sakaa'irta iyo dunuubta kabaa'irta wixii xuquuqda ilaahay ku shaqala ah oon xuquuq bini aadam aan shaqo ku lahayn. maxaa yeele xaqa ilaahay asal waxaa waa cafis, inuu ilaahay iska cafi. marka wixii kabaa'ira oo xuquuq ilaahaya iyo wixii sakaa'ira yaa lagu dhaafayaa bay dhaheen, yaa lagu dhaafayaa. marka kabaa'ir iyo sakaa'ir maxay kala yihiin? culimada waxay ku kala xadeeyeen dembi kaste
oo waciid naar buu qofkaa sameeyo uu geli ay ku soo aroortay, ama xad ay ka waajibayso oo xuduud baa laga oofin la yidhaahdo, ama lacnad rabbi baa ku dhici la yidhaahdo, ama cadho ilaahay baa ku dhici cadho ilaahay baa ku dhici la yidhaahdo, dembiga waa kabiiro wey. laakiin dembigii ayna waxa ku soo aroorin sakiiro wey. saasay culimmadu kala qaadaan. idan maalinkii ninka subxaana allahi wabixamdi 100 jeer yidhaahda dunuubtiisa baa loo dhaafay wa in kaanat mithla zabadi lbaxri. fadli aad iyo aad cadiim u ah weeyaan ikhwati filaahi. subxaana allahi wabixamdihi zaman kaagama baahno, boos iyo meel inaad fadhiisatay kaagama baahno, inaad wakti u qaadatay kaagama baahno. keliya haddaad shaqaynaysa iyo haddaad socoti iyo haddaad soo jeediba inaad aayir, iyo haddaad wayse qabinba iyo haddaad wayse qabti, subxaana allahi wabixamdihi inaad iska badsati wax maaragtay dunuubtaadii oo dhan baa lagu dhaafaya. waa fadli dikri aad iyo aad cadiim u ah wey. bal waxaa soo aroortay xadiid kale oo dheer oo saxiixa oo nabiyullaahi nuux markuu geeriyoonayey wiilkiisa uu yidhi waan kuu dardaarmaya kaalay. waxyaabuhu u dardaarmay baa waxaa ka mid ahaa waxaad tidhaahdaa subxaana allahi wabixamdihi, maxaa yeelay fa innahaa salaatu kulli shayin, shay kasta oo noolaa salaadiisa weeye. wa bihaa ayadaasa yursaqu lagu irsaaqaa kula maaratay kullu shayin ama kula maaratay kullu lkhalqi. wa bihaa yursaqu lkhalqu, khalqigana ayadaa lagu irsaaqayaa ayuu nabiyullaahi nuux yidhi. yacni subxaana allahi wabixamdihi buu wiilkiisa u dardaarmay inuu yidhaahdo, maxaa yeelay buu yihi waa salaad maaragtay noolo kasta wax kaste oo khalqi ah ama ha noolaada mayso noolaanin oo ilaahay abuuray salaadiisa weeyaan. muxuu xadiidkaa waafaqahayaa wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum ba ilah yidhi. shay ma jiro oo ilaahay abuuray ama ha noolaado ama jaamid ha ahaado ilaa ilaahay buu u tasbiixsanhayaa, laakiin idinka bini aadam haddaad tihiin ma fahmaysaan tasbiixdooda oo luqadiina luqada aan hayn bay ku hadlahayaan. tasbiixda iyo maarata subxana allah wabixamdidaas khalqigoo dhan baa lagu irsaaqaa, risqiga mafaatiixdiisa weeye. idan fadliga ay leedahay subxaana allahi wabixamdihi bay ku tusinaysaa ikhwati filaahi. idan kelimadaas iyo dikriga aanu badino subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi maantao dhan taa iskaga celcelisi wax culaysa kugu haysta male. subxaana allahi wabixamdihi maxaa yeelay 100 jeer haddaad tirahdee dunuubtaadii oo dhan baa la dhaqahayaa, yaa la dhaafi. haddaad ka sii badan tirahdina kaba sii badanba wey. aad iyo aad bay u qiimo baantay dikrigaas ee maaragtay aanu ku celcelino innaga nafteenna iyo caruurteenna baanu baro. ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nagu nirtaaqa xaqa raacitaankiisa. dikriga waa dikriga aan lahayn zaman iyo waqti iyo makaan midna aan lahayn. haddii habeen tahay, haddii maalin tahay, iyo haddaad shaqaynaysa iyo haddaada shaqayn, iyo haddaad masaajid ku jirta, haddaad banaan socoti, aayar baad iska akhrisanaysa galab iyo habeen iyo nis hor iyo nis dambaba. hal mar baan xadiidka lafdigiisa akhrinhayaa. alxadiidu 623 can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal man qaala subxaana allahi wabixamdihi fii yowmi 100 maratin gufirat lahu dunuubuhu wain kaanat mithla zabadi lbaxri. رواه البخاري ومسلم والترمذي والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.